مقومات الأمن والاستقرار waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaanshiyo la helo haddaynu muqawamaadka diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno nabad heli mayno waxaynu helaynaa waa labada dhan inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno labada dhan inaynu kala dooranno saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca saacadna inaynu joogno maxay mid dictator ah oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta labada taraf baynu abi taagnaanaynaa doorashadeennuna labadaas bay joogtaa أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة قال تعالى في محكم تنزيله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية reer nebi aadama oo hadduu ay idin yimaadaan rusul xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramaan aayaadkayga baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhahdaan waa macdala waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamkaa soo mara fii kulli zamaan wa makaan waqti kasta iyo meel kastaba waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin ima طugyaan aw ilfawda laa amna wala istiqraar deganaanshiyo
iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa labada gebi midunbuu ka dhacaa mid ah fawda dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawda ay noqoto fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa aw tugyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsi iyo cadamul istiqraar deganaanshiye la-aan hadday dictatorshipka iyo tughyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la-aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa alamni الnafsi waاlijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanaه wa tacaala ariiqiisaas deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu الtaqadumi wاlxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab wاlkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa طariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabad iyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman itaqى وaصlax falaa khawf عalayhim walaa hm yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawf عalayhim walaa hm yaxzanuun in اladiina qaluu rabuna اllah ثuma اstaqaamuu falaa khawf عalayhim walaa hm yaxzanuun alaa ina أwliyaaء اllahi laa khawf عalayhim walaa hm yaxzanuun xawaali 14 aaya baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddii kitaabkiisa lagu qumanaado haddii diintiisa la raaco haddii rusushiisa la rumeeyo haddii jidka ilaahay uu dadka u soo dejiyey la raaco haddii hanuunka aniga iga yimi aad raacdaan baa ilaahay leeyahy falaa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun weeyaan baqa korkiina ahaan maayo murugana korkiina ahaan mayso bale ilaahay subxaanaه wa tacaala nabadiyo amnigu si ay aadanaha faa'iido ugu leeyihiin jannadiisa markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay daarta nabadgelyada oo aafaadka dunida ka dhaco dhan in lagaga nabadgelayo lahum daaru الsalaami cinda rabbihim baa ilaahay ku tilmaamaya daar nabadeed bay alle agtiisa ku leeyihin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu dadka ugu yeedhayaa inay daartaa nabadeed tahay wallahu yadcuu ila daari الsalaami wayahdi man yashaau ila siraaطi mustaqiim bale ilaahay islaamnimadaba wuxuu ku tilmaamay waddada nabadda inay tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allahi nuuru wakitaabu mubiin yahdi bihi allahu man itabaca ridwaanahu subula الsalaam jidka nabaddaa ilaahay ku hanuuniya ciddii raacda kitaabkiisa wayukhrijuhum min الظulumaati ila الnuuri biidni wayahdihim ila siraaطi mustaqiim amnigu ayuha alaxiba waa nicma kow waxaa lagu helaa ilaahay kitaabkiisoo la raaco hadday dadku diinta alle si qumman u raacaan kow waxay helaan iطmi'naan qalbiya amni nafsiya naf ahaan bay u degaan naftooda xasisha warwaryo tiiraan iyo muruga kuma dhacdo meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynaysuu garanaya ilaahay in layswada hortaagayuu garanaya saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wacd allah اladiina aamanuu minkum wcamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama stakhlafa aladiina ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa alle wuxuu idiin yaboohay kuwa iimaan laga hela idinka mid ah aladiina aamanuu minkum wcamiluu الصaalixaat iimaan iyo camal saalixa ciddii laga helo ilaahay wuxuu u ballan qaaday layastakhlifannahum fi lard dhulkaa ilaahay khilaafadiisa idiin dhiibaya dhulkuu idin dhaxal siin sidii kuwii idinka horreeyayba loo dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanaه wa tacaala makansiin doona oo ta quwada leh koraysan noqon doonta
walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeedna ilaahay subxaana wa tacaala nabad buu ugu bedeli doonaa shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa adduunka marka la joogo ilahay wuxuu leeyahy nabadda adduun baan idinku siinaya aayaadkani waxay ka warramayaan adduunyo aakhirana wahum min fazacin yowmaidin aaminuun baa ilaahay leeyahy aakhirana way badbaadayaan oo fazac iyo dhibta ka jirta labada goorba badbaaday leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nabaddu iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waa gaaya uu islaamku u ictibaariyay lidaatihi inuu gaayaadka la raadcaynaya ka mid yahay sidaa ogeed baa qur-aanka aayaad badani waxay ku tilmaamayaan qofku inuu nabad diintiisa u helo inuu nabad u helo naftiisa inuu nabad u helo maalkiisa inuu nabad u helo cirdigiisa iyo nasligiisa iyo sharaftidiisa adaruuraat alkhamsa bay culammadu ka warramaan waa mas'ala inuu qofku nabad intaasi oo dhan u heli karo si uu rabbi subxaanahu wa tacaala kaligu u caabudo waxaana ilaahay qur-aanka aayaad badan ku tilmaamaya waxa sharaa'icda loo soo dejiyeyba inay tahay nabaddaa in la helo nabaddaa in la helo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga u soo dejiyey nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa adduunka inaan waxbaba kaa maqnayn haddaad saddex shay isla hesho wax aadanuhu raadiyaa adduunka waa saddexdan buu nebigu ku tilmaamayaa man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu ddunyaa bixadaafiriha nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ninka waa bariista isagoo ah mucaafan aaminan fii sirbih kooxdiisa ama ehelkiisa ama bulshadiisa ku nabad qaba o aan cidna ka baqaynin nabad qaba mucaafan fii jasadih jidh ahaanna u caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu cunana haysto ninka saddexdaasi isugu kulanto inuu tolkii iyo dadkiisa la joogo ku nabad qabo oo aanu qaxoonti meel daran ku ahayn ama kiisa ku nabad waayin ee uu ku nabad qabo dadkiisa isagoo la jooga aamin fii sirbi waxaa kaloo la yidhi jidhkiisuna uu caafimaad qabo oo amraada iyo waxaasi aanay haynin waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay maantaa wuxuu cunana haystaa adduunku waa in la cuno un kama bato saddexdan shay kama bato adduunka waxa bini aadamku raadiyaa si awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamayaa kaasi adduunyadaa ku soo ururtay adduun dhammaantiiba kaa wuu hayaa buu nebigu tilmaamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u gallad sheeganayay quraysh ilaahay wuxuu leeyay falyacbuduu rabba hada albeyt alladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf ha caabudaan rabbiga baytulxaraamka leh ee gaajana ka quudiyey baqana ka nabadgeliyey haddaba ayuha alaxiba amnigaasi qur-aanku uu ka warramayo nabadgelyadaasi asbaab iyo muqawamaat bay leeyihin hadduu dadku la yimaadana uu sugmayo oo uu jirayo hadduu dadku la iman waayana aan la helaynin ee labada fawdo midun uu dhacayo imaa inuu fawdada dictatorka u dhaco oo cid ku amarku taaglaysoo tunto sida caalamulislaami uu u badan yahay ama inuu xagga fawdada u dhaco sida qaybo badan oo caalamulislaami ay ka tirsanaa yihiin waa labada daraf oo labaduba cadamu lamniya labaduba khawf iyo cadamu istiqraar u yaallo nabad iyo deganaanshiya labadaba aanu midna oolin si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa kow waxa deganaanshiya keena waa aliimaanu billah aladiina aamanuu watatmainu quluubuhum bidikri illahi alaa bidikri illahi tatmainu lquluub wakayfa akhaafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي وحكت المام يكون نبض هايستا النفتو ذا آني ورور دينات قبن هانوسنا جدك صحن قاضي وكو إلهي ربي سبحانه وتعالى جدكيس هيا هدين الإسلام نمدين ندبو قاضنه
waxaynu helaynaa amni nafsiya naf ahaan inaynu xasiloonaano waxaynu helaynaa amni sixi iyo qadaa'iya dhaqaal ahaan inaynu deganaano xasilaano waxaynu helaynaa amni akhlaaqiya waxaynu helaynaa amni fikriya waxaynu helaynaa bini aadamku nabadda uu u baahanyay dhammaanteedoo meel kastaba gasha cirdigaaga iyo maalkaaga iyo naftaada iyo diinkaaguba waa nabadgelayaan amaa haddaynu jidka alle ka weecanno oo qaadi weyno labada daraf ee kale midun baynu ku dhacaynaa ama darafkaa fawdadaynu taagnaanaynaa ama darafkaasi dictatorka baynu taagnaanaynaa labadanna bini aadamku inta badan wuu kala tallaabaa mar hadduu xaqa garan waayo ama fawdu ku dhacayo wuu dawakhaa markuu hadhow wareerana wuxuu aqbalaa mid dictator inuu qabsado wuxuu idhaha wartan wax waliba waa dhaamaane aan marun ka baxno ka kale markuu qabsaday nafta isugu keenana waxay idhahdaan kan wax waliba waa dhaamaane aan ku boobno marka labada dhan midunbuu taagan yahay se labadaba waxaa lagaga badbaadaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala tiisa la raaco saa ogeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay diintiisa qaadanno kow oo iimaan laynaga hela iimaankaa asal u ah nabadde laba inaynu yeelno alamru bilmacruufi wannahyi can اlmunkar xumahana iska reebno xuma iska reebku waxa weeyaan wixii masaalixa ummaddu aanay ku jirin adduunya aakhiratoona in dadka laga celiyo wixii dadka adduunkooda iyo aakhiradooduba ay ugu jirtana in dadka la faro saa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku tilmaamayaa intuu seexdo kacay buu wuxuu nebigu leeyahay laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad ikhtarab carab halaag baa u sugnaaday balaayaa soo dhowaatay buu nebigu tilmaamay yaajuuj iyo wamaajuuj baa meeshoodii wax laga dumiyey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in mashaakil iman iyo fitan iyo imtixaan buu tilmaamay haweenkii nebiga mid ka mid ah waxay ku tidhi afa nuhlaku wa fiina saalixuun oo miyaana halaagayaa miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadka saalixiinta ay nagu jiraan dad wanaagsan iyadoo joogaan miyaan halaagsamaynaa qaala nacam idaa kahura alkhabath buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haa hadday inta xumi badato hadday bulshadu inta xun qaban weydo oo sii dayso dabcan waa halaagsamaysaan baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam kaas buu adkaynaya maanta waxaa badan kahra alghawaa'iyiina wاlmugafiliin dadka xumaha ugu yeedhaya dadka xumaha ugu yeedhaya mashkiladda waxaad ka eegtaayoo keliya social mediahan bini aadamku ay dhegaystaan ama dadku dhegaysto social media waxa laga soo afuufayo bale soomaalidu waa dad dhibtooda ay ka gedisantahay dadka kale social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaystaa waa inta waalan ummad dadkeeda waa la dhegaysataa ma jirto ha soomaali ahayni dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalan yahay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yahe la dhegaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno kow inaynu caqiido saliima qabsanno xejisanno laba inaynu alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar samayno saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno waitaadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إلهي wuxuu tusaale inoogu tilmaamay magaalo nabad qabtay oo deganayd oo arsaaqdeedu meel kasta uga imanaysay laakiin ilaahay nimcadiisii ku kufriday faadaaqa allahu libaas aljuuci waalkhawf oo ilaahay subxaanaه wa tacaala dhadhan siiyey huga cabsida iyo gaajada hugooda rabbi dhadhan siiyey walaqad jaaءahum rasuulu minhum fakadabuuhu faakhadahum اlcadaabu wahum ظaalimuun ayuha alaxiba waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo sharcigu inoo tilmaamay oo haddaynu ilaahay diintiisaasi si dhaba u qaadanno oo waxay sheegaysa yeelno waa sida quraynu nabad ku heli karno baryo galbeetoona nabad ma soo wadaan
jaar iyo kuwa kaa fogitoona kuuma soo wadaan. dunida ina soo gaadhiyo duni ku soo gaadhayso adiga ku danaynaysaa ma jiro. adna ma tihid ilma caruura oo wasiyo u baahanayo cid gacanta qabata. carruurtaa la yidhaahdaa caqligooda kuma fille sharcigu wuxuu yidhi cidi ha ka mas-uul noqoto. ma carruur baynuna cidi ka mas-uul tahay markaa oo umamka caalamka iyo dunidaynu u yeedhaynaa haddaynan qaan gaadhaynin waa lagu gumaysanayaa lagaa mas-uul noqon maayo. ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaafa la weydiisto. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الأحبة waxyaabaha ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo ee deganaanshiyuhu ku yimaado waxaa ka mid ah istiqraarka siyaasiga ah ummadi inay kala dambayso. yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum. war inta iimaanka laga helayow alle iyo rasuulkiibaa ateeca inta talada idin haysana ateeca. bini aadamka tale looma dhiibo haddii aanu taaco yeelanaynin. maamul aan taaco lahaynina dunida kama jiro. dowladaha reer galbeed waxyaabahay ku guulaysteen waxaa ka mida waxay aqbaleen maamul kastoo ay samaystaan inay taaco ula yimaadaan. hadduu yahay ku dowladeed, hadduu yahay ku shirkadeed, hadduu yahay ku ka hooseeya, hal meela unbay gafeen oo maamulkeeda u diideen inuu madax yeesho. meeshaasna way ka burbureen. galbeedka meesha qura aan maamul lahayn waa guriga. islaantii odaygu waa sibayin midna ka kale ma maamulo. guriguna wuu baaba'ay waayo maamul baanu lahayn, kala dambayn ma leh. nolosha inta kale way garteen inay kala dambayn u yeelaan, taasee uma yeelin. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nolosha oo dham inay kala dambayn yeelato. hadday madaxdu qaldanto ama waddada la hayaa aanay sax noqonin, ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul. war haddaad murantaanoo wax isku qabataanna isdila lama odhanin ee ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idin sheegayaan usoo noqdaa la yidhi. kaasi ha noqdo waxa idin kala saara haddaa alle iyo rasuul rumaysantiin. idan wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan in waliyul amrigu ama cidda wax maamushaa inay taaco leedahay. waxaa kaloo uu tilmaamaya ammaana inay tahay isna uu ka soo baxo. waxaa kaloo nabigu tilmaamayaa cid aan ammaanadaa qaadi karinna inaan loo dhiibin. soomaalidu waxay caan ku tahay kay adhiga kala quusataabay geela u dirataa bay idhaahdaan. reerku kuu ka quustaabaa xagga maamulka loo diraa. waxaana la doonayaa in la guulaysto. mid aanadadba waxaaga u dhiibteen baad leedahay waxa ummadda ha loo dhiibo. caaqilka iyo suldaanka iyo odaygu kuwaanu isagu xoolihiisa gaarkaa ku aamineen uu yidhaaho ummadda ilaahay waxay leedao dhan ha lagu aamino waa dulmi kale. suurtagalna maaha inay dhacdo. bal isagoo daacada oo cibaado badan ayuu hadduu karti daraya aan loo dhiibayn ama haddaanu maamulka aqoon. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii rag ka mid a oo uu ku tilmaamayay inuu ninka ugu hadal cad uu yahay abidar ayuu nabigu ku yidhi adigu daciif baa tahay iska daa maamulka. laa ta'muranna cala اثnayn. laba ha u talinin buu nabigu yidhi mid ka badan daaye laba qof. idan haddii la waayo ummaddu cidday dooranaysa hadday noqon weydo ciddii ku qumanayd iyana waa cadamu listiqraar.
deganaanshiyaha waa la waayaya. waxaa kaloo deganaanshiyaha la waayayaa cidda maamulka haysaa hadday cadaaladda ka tagto, xukunka cadaaladiisa, dhaqaalaha cadaaladiisa, alcadaala fi tawsiic, ummadda inay si siman wax u siiso. haddii maalin baynu idhaahna waa maalintayadii oo la yidhaha maalinba reer ha boobo, dabeetana reerkaasi gar iyo gardarraba uu difaaca ugu jiro ninkaasi inuu meesha fadhiyo, waayo waa xilladoodii, mar bay rabaan iyaguna inay meesha boobaan. hadday taa tahayna guulaysan mayno, istiqraarna jiri maayo. laakiin wuxuu istiqraar jirayaa in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i walmunkari walbagi yacidukum lacalakum tadakaruun. waxa ilaahay nagu waaninaya haddaynu aqballo. akhiiran waxaan ku gebagabaynaya muqawamaadka waaweyn waxaa ka mid ah inta wax qortee iclaamka ku jirtaana inay ilaahay ka baqato. iclaamku waa waxyaabaha ummadaha roga, beentan badan ee la faafinayo, warkan aan la hubin ee la akhrinayo, waa waxa dadka dabagediya. iclaamka hal tusaalaan kaasi wuxuu samayn karo. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo amiinu man fi samaawaati wa fi lardiya, alsaadiq alamiin, gaalnimadii ama martaan diintu ku soo degin lagu yaqaanay inuu alsaadiq alamiin yahay qabla albictha, iyo intii waxyigu ku soo degayba caan ku ahaa, ayaa qurayshi waxay ku tashatay inay war ka faafiyaan. warkay ka faafinayeen waa maxay? waa inuu nin waalan yahay. dadka kii u caqli badnaa ee ilaahayba doortay ee bashar oo dhan inta rabbi eegay, allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata, uu dad oo dhan ka doortay, ee haddana tahire qalbigiisa jeexaya nadiifiyey, ee haddana waxyi ku soo dejiyey, ee jidka quman ilaahay u tilmaamay, ku tilmaamay basharka ka u khayr badan inuu yahay, ayaa miidiyuhu wuxuu go-aansaday in dadka loo sheego inuu waalan yahay. dabeetana dacaayaddaasay faafiyeen. saxaabi damaam la yidhaahda wuxuu leeyahay magaaladan soo galay, dabeetana sidii warka laygu waday hareeraha dadka magaalada maka kaga imanayaan baa loo sheegaa nin waalan baa magaalada jooga oo dadka sixre ah, yuu ku dawakina iska ilaali haddaad u tagto, annagaa tolkiyo oge. magaaladan soo galay buu say warkii igu wadeen ayaan sidhi buu markii dambe sidhi buu war malaa ninkani wuu xanuunsanayaaye bal ma isku daydaa inaad dawayso. nabi maxamed buu yimi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisii ayuu wuxuu ku leeyahay war waxoogaa baan dadka ku tufaa madaxa looga jire, ma kugu tufaa waxoogaa? yani wuxuu rumaysan yahay inuu waalan yahay oo u baahan yahay in wax lagu tufo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu la hadlay. markaa kadib buu ogaaday de inaanu ninkaa waxaan ku hadlayaa nin waalanahayn oo islaamay. waxaan uga dan leeyahay haddii nebi maxamed loo inta dad u shiro la odhan karo wuu waalayo dad laga dhaadhicin karo, inteena kalena inaynu waalanay waa laynaga dhaadhicin karaa. iclaamku markaa imaa inuu mufsid yahay oo dadka fasahaadiyo, iyo inuu khayr ka shaqaynayo oo alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar uu khayr sheegayo. waxaan soo sheegay oo dhan iyo kuwo kaleba qur-aanku in badan buu ka warramaya, wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin muqawamaat alamn walistiqraar, waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaanshiya la helo. haddaynu muqawamaadka diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno, nabad heli mayno. waxaynu helaynaa waa labada dhan un inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno, labada dhan un inaynu kala dooranno. saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca, saacadna inaynu joogno maxay? mid dictator ah oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta. labadaa daraf un baynu abi taagnaanaynaa, doorashadeennuna labadaas un bay joogtaa. waxaa qura aynu qumanaan karnaa haddaynu aqballo ilaahay kitaabkiisa inaynu raacno. haddaynu taa aqballo, dad badan oo dadkeenna ka mid a aaminsan haddaynu kitaabka raacno waa lumaynaa, haddaynu kitaabka raacno gaalada ayna maagaysaa. armaaba la guulaysan waayaa, shakaa ku jira. dee kitaab war armaynu guulaysan weynaa. idan markaa hadday taasi timaadana dee iimaankeennaa dib loogu noqonayaa. mar caqiidadeennu sax ma tahay iyo waxaynu rumaysannahay, taas baa imanaysaa.
haddaynu wixii alla inoo soo dejiyey wahuwa alkhabiiru alcaliim axkamu alxaakimiina oo aan suu aqoontiisa wax la mida ilaahay aanu jirin, khibraddiisa wax la mida aanay jirin, naxariistiisa wax la mida aanay jirin, xikmaddiisa wax la mida aanay jirin, haddaynu isaga ku kalsoonaan weyno ma waxaynu ku kalsoonaanaynaa 4 qof oo intaynu meel u saarra aynu idhaahno waa khubaradii galbeedka ka timi oo waxbay inoo qorayaan, iyagaa in hanuuninaya. bini aadamka u fiirso, rabu الsamaawaat ayaa waxaad ka dooranaysaa guddi bini aadama meel la fadhiisiyo la yidhi wax qora mahmaa kaanuu, wadaad iyo wamin waxay doonaan ha noqdaan, oday iyo suldaan iyo kuu doonaya ha noqdo. war ma bini aadam baad ilaahay dhinac dhigaysa aad ka shakisan tahay ka bini aadamku inuu ka fiican yahay ka rabbiga? rabbina wuxuu ku leeyahy war kitaab baan kuu soo dejiyey raac, rusule hadday idiin timaaddo oo aayaadkayga ay idiin sheegaan faman ittaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأقم الصلاة.